kulan wacan daawadayaal halkan waa Warsida TV kuna soo dhawaada qodobada wararka aan idin diyaarinay waxaa ka mid noqonaya Ismaaciil Cumar Geelle madaxweynaha Jabuuti oo jawaab adag ka bixiyay arrinta ay ku eedeysay dawladda Soomaaliya ee ahayd garab istaaga Kenya waa maxay qorshaha uu dejiyay taliyaha NISA Fahad Yaasiin oo ka hor imaanaya Dani iyo Axmed Madoobe farmaajo oo bilaabay hab cusub oo lagu beegsanayo qaar ka mid ah midowga musharaxiinta ee ugu ciidanka badan maxaadan ogeyn oo maanta ka dhacay guriga ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble qodobadaas iyo kuwa kale oo xasaasi ah ayaanu idin haynaa ee fadlan like share subscribe la wadaag asxaabtaada oo fura gambaleelka hana ilaabin daawaday inaad ilaaliso waqtiga cibaadada waa tahay daawadayaal markaan si toos ah ayaan ugu gudgaleynaa faahfaahinta qodobadii hordhac warka aad ku daawateen waana ku mahadsantihiin sida joogtada ah aad aragtida uga dhiibataan qodobada iyo macluumaadkan halkan ku soo bandhigno aan ku bilowno madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa jawaab adag ka bixiyay eedeyntii ay u soo jeedisay dawladda Soomaaliya ee ahayd in uu garab istaagay dalka Kenya madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa markii ugu horeysay ka jawaabay eedeyntii ay dawladda Soomaaliya u jeedisay Jabuuti kadib markii guddi ka socday ay warbixin ka diyaariyeen xuduudda Soomaaliya iyo sidoo kale Kenya iyadoo la baarayo faragelin iyo abaabulka jabhad hubeysan oo ay ka cabatay dawladda Soomaaliya gabagabada sanadii dhamaatay ee 2020 waxaa cirka isu shareeray xiisadda diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Kenya waxaana dawladda Soomaaliya ay ceerisay wakiilkii Kenya ka joogay Muqdisho iyadoona ku eedeysay in ay faragelin ku hayso arrimaha gudaha Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dhigiisa Kenya Uhuru Kenyatta ayaa bishii December sanadkaasi isku arkay shirka IGAD ee ka dhacay dalka Jabuuti waxaana kulanka ay yeesheen ku helinayay ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed iyo madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle madaxda urur goboleedka IGAD Jabuuti ayay xilligaasi u xil saareen in ay dadaal ku bixiso sidii loo dejin lahaa xiisadda heerka sare joogta ee Soomaaliya iyo Kenya maalmo kadib waxay dawladda Jabuuti xuduudda labada dal u dirtay guddi xaqiiq raadina kaas oo soo saaray waxa ka jira eedeyntii ay dawladda Soomaaliya u soo jeedisay Kenya warbaahinta gobolka ayaa baahisay nuqul ka mid ah warbixintii uu diyaariyay guddigaasi waxaana weji kala yeelatay xiisadda jirtay kadib markii warbixinta ay soo saareen guddigaas ay ku qanci weysay dawladda federaalka Soomaaliya dawladda Soomaaliya oo xilligaas si cara leh uga hadashay warbixinta waxay Jabuuti ku eedeysay in ay kala safatay Kenya oo guddigii ay soo dirtay qaateen doodii Kenya oo ay iskaga indhatirtay cadeymaha iyo eedeyntii ay u haysatay dawladda Soomaaliya madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle isagoo markii ugu horeysay ka jawaabay eedeemihii ay dawladda Soomaaliya u soo jeedisay Jabuuti iyo xiriirka xumaaday ee labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya waxa uu ka hadlay arrinkaasi waxaana uu sheegay in laga maarmaan ay tahay in la hagaajiyo xiriirka Muqdisho iyo Nairobi isagoo xusay in labada wadan ay daris yihiin isla markaana aysan sinna u kala maarmi karin madaxweynaha Jabuuti ayaa sharaxay sababta uu ugu jawaabi waayay dawladda Soomaaliya markii ay ka carootay sida Jabuuti u wajahday khilaafka Soomaaliya iyo Kenya waxa uu yiri Ismaaciil Cumar Geelle Soomaaliya iyo Jabuuti cid kala kaxeen karta ma jirta tan labada dal ee hawshooda waa Kenya iyo Soomaaliya waxa ay ku timid dalab uu madaxweynaha Soomaaliya ku soo bandhigay shir madaxeedkii IGAD oo nala yiri idinka ugu dhow bal soo eega waan iska diidi kare oo aan dhihi kare cid kale u dirsada laakiin galgacal walaaltinimo ayaan u galay arrinkaasi isagoo sii hadlayay Ismaaciil Cumar Geelle waxa uu yiri waxa aan soo aragnay iyo waxa aan soo qornay ragga Soomaaliyeed ma aysan akhrinba runta haddii la fiiriyo mana garanayo wixii ku dhex jiray meeshaas waxa uu sidoo kale shaaca ka qaaday sababta uu xilligaasi ugu jawaabi waayay caradii dawladda Soomaaliya ay ka muujisay tallaabadii ka dhalatay warbixinta guddiga xaqiiqraadinta ee ka socday Jabuuti waan iska diiday in aan jawaab ama wax ka iraahdo arrinkaasi maxaa yeelay dabka haddii la sii huriyo dhibaato unba imaanaysa waxaana ay tahay in arrinkaasi uu iska dhamaanayo haddii la yiraahdo ayuu ku soo koobay hadalkiisa khilaafka Soomaaliya iyo Kenya ma aha mid ku kooban faragelin ay ka cabatay dawladda Soomaaliya iyo arrimaha Jubbaland oo kaliya balse labada dal waxay isku hayaan xuduud beenaadka ay sheegatay dawladda Kenya 15 bishan oo ku beegan toddobaadka soo aadan waxa xarunta dhexe ee maxkamadda ICJ ka bilaabanaya dhageysiga dacwadda baddaas oo indhaha Soomaaliyeed ay ku jeedaan Kenyaanka iyo warbaahinta caalamku waxay aad ugu mashquuli doonaan arrinkaasi waxaana dhageysanaya kiiska ay maxkamaddu mudeysay in uu ilaado 19 bishan wixii intaasi ka dambeeyana waxa maxkamadda laga sugi doonaa xukunka ama raaxfaanka labada dhinac
Kenya waxay dhawaan dalbatay in mar kale dib loo dhigo dhageysiga kiiska, balse garsoorka maxkamadda iyo dowladda Soomaaliya ayaa labaduba ka diiday dalabkaasi. waxaa Muqdisho saacadihii la soo dhaafay ka ambabaxay guddiga Soomaaliya u qaabilsan kiiska badda, kaas oo u diyaar garoobaya inay dacwadda uga qayb qaataan xarunta maxkamadda. Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka xukuumadda Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed ayaa hogaaminayay guddiga, isagoona garoonka Aadan Cadde kula hadlay warbaahinta. waxa uu sheegay in ay rajo fiican ka qabaan guusha Soomaaliya ee ku aadan badda ay sheegatay dowladda Kenya oo ay leedahay ummadda Soomaaliyeed. weli wararka Warsida TV ayaa daawanaysaan. markaan haddii aynu eegno qorshe u dejiyay Fahad Yaasiin ayaa ka hor imaanaya Dani Axmed Madoobe. kulamo gaargaar ah ayaa ka dhacay saacadihii la soo dhaafay xafiiska madaxda ugu sareysa dowladda xilgaarsiinta, xilli loo ballansan yahay in shir ballaaran uu toddobaadkan uu ka dhaco magaalada Muqdisho ee u dhaxeeya madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada. inta aysan imaan Siciid Dani iyo Axmed Madoobe oo xamar ku soo wajahan ayaa shirkan uu ku soo aadaya, waxaana si dhab ah loo ogeyn waxa looga hadlayay. kulamadan ayaa waxaa yeeshay madaxweyne Farmaajo oo bil maanta u buuxsantay oo muddo kororsi ah villa Soomaaliya ku jooga iyo sidoo kale xubnaha ugu sareeya xukuumadda nabad iyo nolol. shirqoolla siyaasadeed iyo kala dhantaal lagu sameynayo awoodda Axmed Madoobe iyo Dani ayaa laga arinsanayaa, waxaana sidoo kale la iclaamiyay in arrinkaasi lagu dhaqaaqo marka ay yimaadaan Muqdisho. agaasimaha hay-adda nabad sugidda Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo ah milkiilaha dowladda Soomaaliya waxa uu dejiyay qorshe ah in lala heshiiyo Siciid Dani, lacagna loo ballan qaado, kadibna sidaasi Dani loogu diro Axmed Madoobe maadaama ay isfahansan yihiin labada mas-uul waa Dani iyo Axmed Madoobe. madaxweyne Farmaajo ayaa culays badan saaray Siciid Dani si uu ula heshiiyo kadib Axmed Madoobe waxaa afka ka qaban kara madaxweynaha Puntland Siciid Dani oo ay isku siyaasad noqdeen. saraakiil iyo xildhibaano ka soo jeeda maamulka Jubbaland iyo Puntland oo dowladda dhexe ka tirsan ayaa kulamadaasi dhacay sida aan xogtan ku helnay, balse go'aanada ugu dambeeya iyo istaraatiijiyadda la adeegsanaya mar walba waa isbedeli kartaa oo dowladda Soomaaliya dhinacyo badan ayay wax ka eegi kartaa. weli waxaad daawanaysaan wararka Soomaaliya kuwooda xulka ah uguna dambeeyay, isla markaana ka hadlaya xaaladda siyaasadeed hadba meesha ay marayso. markaan haddii aynu eegno saddexda qodob ee ugu muhiimsan ee shirka xalane looga hadli doono iyo sidoo kale amniga cidda sugaysa, waxaa lagu wadaa in maalmaha soo socda madaxda dowladda federaalka, dowlad goboleedyada, gobolka Banaadir uu shir uga furmo magaalada Muqdisho, gaar ahaan xalane, kaas oo qabsoomidiisa ay dadaal badan ku bixinayaan wakiilada beesha caalamka, gaar ahaan safiirka Mareykanka iyo wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya. sida aan xogta ku helnay waxaa shirkan loo aasteeyay in uu ka dhaco hoolkii lagu doortay madaxweyne Farmaajo, kaas oo maalmihii ugu dambeeyay uu kulamo uga soconayay wakiilada beesha caalamka ee Soomaaliya kuwaas oo ka arrinsanaya arrimaha Soomaaliya. waxaana taasi loo fulinayaa shuruudii Axmed Madoobe iyo Siciid Dani oo dalbaday in shirka lagu qabto goob ammaankeeda laisku halayn karo. madaxweynaha Puntland iyo madaxweynaha Jubbaland waxaa la sheegay in Muqdisho ay imaanayaan inta lagu guda jiro toddobaadkan gudihiisa, waxayna dhankooda wataan shuruudo cusub oo ay la imaan doonaan shirka. hase yeeshee dowladda Soomaaliya iyo siyaasiyiinta ugu miisaanka culus dowladda Soomaaliya ay diyaariyeen qorshayaal cusub. dowladda federaalka ayaa doonaysa in shirkaasi lagu soo koobo xaflad ay madaxdu ku kala saxiixanayaan qodobadii xalka looga gaaray khilaafka doorashada ee shirkii guddigii farsamada ee kala matalayay dhinacyada dowladda, kaas oo bishii hore ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. hase yeeshee xogta aan helnay waxa ay caddaynaysaa in heshiiska Baydhabo kadib Axmed Madoobe iyo Siciid Dani la yimaadeen 3 shuruudood oo cusub, kuwaas oo ay qorsheeyeen in ay la yimaadaan shirka Muqdisho, waxaana ay kala yihiin 1 in madaxweyne Farmaajo saxiixo warqadda xilgaarsiinta, 2 in wixii sharciyada oo la saxiixay 27kii bishii December kadib xilligaasi uu dhamaaday muddo xileedka baarlamaanka in laga laabto oo ay baarlamaanka dib uga laabtaan. qodobka ugu dambeeya ee ay wataan Axmed Madoobe iyo Dani ayaa ah in amniga doorashooyinka laga wada hadlo kadib wixii Muqdisho ka dhacay 19 February. dhinaca kale madaxweynayaasha Galmudug iyo Koonfur Galbeed ayaa hadda safar ugu maqan dalka Turkiga, waxaana la sheegay in ugu dambeyn ay dalka dib ugu soo laabanayaan Arbacada soo socota oo ku beegan maalinta biri. guud ahaan daawadayaal wararkii Warside waanaga inta nabadgelyo.